halkudhagyada ogaal reediya ayaa waxaa ka mid ah runta sheeg xataa hadday dacar ka qaraadhahay وهجاج واحد جيتنا هيس كي خاطمه وإريدي مرسل سليبان سجله يعطكي كوشن يجيبنتي حياة جلغاز سان هريبا إذا كشجنا عاوة استوديو هريريو قال وحمرتين موضوعه مضان آذن عبد الله الشوري وكم إذا أضياش شالية خاطمة استيد أهانا أفيانكي شركي طليح لغو آساسي خاطمه ومركو هوريه مضان آذن عبد الله كسو دوو إذا عدن ريديو قال حسن عبد الله عمر آدي آدبكم سلامية أديك يدمان هورده نذا راديو قال وادما حسن تور مضان آذن عبد الله بلوح نوغا الشيق حالة خاطمه يدبالدقي شركي تورنتو كدعي لو دبالدقي خاطمه حسنا حالة خاطمه آدي بوناسنتها ميل في عنا ومريسا شاليتو بيش جانوري لبيو طبعا هيد وحا أدون كوردن لوغا دبالدقي سنة قولدي كواد كسو وريكتي مركز دبادر لو تاقي معمولك خاتم استيت loogu taagay magaalada taariikhda ee Soomaalida ku weyn ee magaalada Taleex adduunka oo dhan shanta qaaradood xaflad baa lagu qaatay meelaha xafladaha ugu waaweyn ka dhaceen sida aadka looga xuseen waxaa ku jirta magaalada Toronto oo xaflad lagu qabtay habeennimadii 12 soo gelisay habeen saddexaad maalinta 12ka xafladaas ay ka soo qaybgaleen boqolaal Soomaaliyeed oo ka dhacday banquet hall kale aado Woodbine oo galbeedka magaalada Toronto ku yaala runtiina waa magaalo maalin aad ugu dheer weeye oo mudan in la xuso aad baana looga xusay magaalada Toronto mudan aadan Cabdullaahi maamulka Khaatumo ee sanadka jirsaday maxaa u qarsoomay muddada ayada xasano waa su'aal muhiim ah waxa la oran karaa muddada sanadka waxyaabo aad iyo aad u weyn baa maamulka Khaatumo u qabsoomay dhinaca arrimaha bulshada waxbarashada caafimaadka haday noqoto dhinaca siyaasadda iyo haday noqoto hirgelinta maamulka saddexda qayboodba saddexda meelood waxa weyn baa laga qabtay arrimaha bulshada hadaan ku horeeyo waxbarashada maamulka Khaatumo waxa markii ugu horeysay laga hirgeliyay deegaamada iskuuladii dib loo furay waxa la sameeyay arday maamulka Khaatumo imtixaankii dhexe ee Soomaaliya markii ugu horeysay u fadhiisteen inay ka helaan scholarship oo magaca maamulka Khaatumo ku baxeen oo dalka Turkiga ay aadeen in dib loo furay cusbitaalo badan laga hirgeliyay magaalooyinka Buuhoodle Boocame iyo dhowr magaalo oo kale waxa kale oo la sameeyay oo yana aad iyo aad wax weyn u ahaa garoon caalami ah oo weyn in laga furo magaalada Taleex oo ay shacabka iyo maamulku iyagoo cududooda iyo maalkooda inta la isu geeyay magaalada Taleex laga hirgeliyay dhinaca siyaasadana waxa la oran karaa inuu maamulka dawladii dhexe ee hadda lagu sameeyay Muqdisho iyo shirkii Turkiga ba kaalin weyn oo muuqata oo maamulka Khaatumo ka qaatay oo la oran karo iyadoo hore uga maqnaa dadka iyo shacabka saaxadda siyaasadda oo laga yaabo in dad kale ay magacooda ama sheegan jireen ama jiraan anaga naga tirsan yihiin inay markii hore miiska soo fariistaan oo ay taladoodii iyo baarlamaankoodii iyo isimadoodiiba u fadhiistaan madasha danta Soomaaliyeed lagu hayo
mudane aadan dowladda federaalka iyo maamulka khaatumo state waa sidee xiriirkoodu xasanow dowladda federaalka iyo maamulka khaatumo waxaa ka dhexeeya xiriir aad iyo aad u wanaagsan sida Soomaalidu dhamooda og tahay maamulka khaatumo waa maamul isagu ka tirsan una taagan midnimada Soomaaliya dowladda Soomaaliyeedna aad iyo aad bay arrinka u soo dhaweysay xiriirka naga dhexeeya waa xiriir wada shaqayn iskaashi in maamulkaasi uu hoos yimaada dowladda Soomaaliya maamul ka tirsana midnimada Soomaaliyeedna u taagan heshiiskii u dambeeyay Cabdinuur Qaajo oo kamid ah madaxda sare golaha sare ee Khaatumo ayaa heshiis aad u dheer oo tafaasiilsan la galay dowladda federaalka Soomaaliya kaasoo hadda muddo laga joogo laba usbuuc ka hor la soo gabagabeeyay si iskaashigii iyo wada shaqayntii halka hore looga sii wada marka waxaan oran karaa xiriir aad u fiican oo wada shaqayn ku dhisan iyo iskaashi buuxda ayaa ka dhaxeeya federaalka iyo maamulka Khaatumo xaaladda ammaanka iyo colaadda ka taagan deegaanada Khaatumo xagee bay marayaan xasano way jiraan arrimahaasi colaadda jirta runtii colaaddaas waxaa horinaya maamulka la baxay Somaliland oo deegaanna ka mid ah deegaanada Khaatumo ciidamo iyo colaad ka horiyay oo duulimaad ku soo qaaday tii ugu dambeysay waxa ay deegaanka degmada Xudun uma soo suurtoobin dadka deegaanka iyo maamulka Khaatumoba aad iyo aad bay uga hortageen arrinka marka waxa la oran karaa colaaddu waa colaad one way ah oo ka socota maamulka Somaliland labada shacabna laba shacab oo weligood wada dega oo isdhalay oo dhulka wada dega oo wada daaqay ahaan jireen laakiin siyaasadahan qaloocan ee hadda maamulkaasi ka wado ku salaysan sirsooca iyo dhulbalaarsiga ayaa colaadaha keenay uma soo suurtagelin dhinaca dowladda federaalka haddaan ku noqono wasiirka arrimaha dibadda ahna ra'iisul wasaare ku-xigeenka Marwe Foosiye Yuusuf Xaaji Aadan waraysi ay bixisay ayay ku sheegtay in Soomaaliya iyo Somaliland ay yihiin labadeedii dal balan wax yar ku dhageysiyo waraysiga asaga ah oo aan garaanta dib celiyo inta aan ku dhihin sidee ayaad u aragtaa waxaan ka codsanayaa hal su'aal oo runtii aan jeclahay in adiga aad ku taabanayso inaan ku weydiiyo oo ku saabsan dad badan baa waxay leeyihiin Foosiyo markii hore Somaliland ayay maaragtay xisbi ka asaastay inta badan qadiyada dhinacaas bay u ololeysay kadibna halkan ayay timid wasaaraddaas ka qabatay arrimahaas ayaa dad badan isweydiinayaan isu dhow oo macnaha waqti yarna u dhaxeeyay sida ay ku timid marka ma ka hadli kartaa taa ma ka hadli kartaa Somaliland waan u dhashay ha Foosiye Yuusuf Xaaji Aadan cilmi qabilaanahay hargeysa reer weyn oo caan oo laga yaqaanaanahay Soomaaliyana waan ahay Soomaaliyana iyadoo aanay iima kala duwanayn haddana General Abubakar Fuujaan xaaskiisa ahaa carruurta iyo ma sha Allah waa weyn aad joogtaa marka anigu labadaba waanahay wax la isu weydiiyaa ma jiro unity-ga la sheegayo ee midnimada Soomaaliya xaggaasina waa qayb xaggana waa qayb qofka labadaba ah unity-ga la sheegayo waa aniga marka waxa leedahay labada dhinacba waa dadkayga waa dadkayga waa hagaag sidee ayaad u aragtaa waraysigaas wallahi xasanow horena waan u maqlay waraysiga runtii Foosiya anigu wax ku kalifay sida ay u hadashay ma garan karo wax maskaxdeeda markaa ku jireen ma garan karo Soomaaliya waa Somaliland waa magac gumaysi bixiyay waa gobolada waqooyi inay tiraahdo gobolada waqooyi waan ka dhashay Soomaaliyana waa dalkaygii ayay ahayd maadaama ay ku dhaaratay kitaabkana gacanta ku saartay inay sharciga iyo Soomaaliya dalka ay u tahay wasiir dawladana ku jirto marka anigu waxaan u malaynayaa Foosiya أنا وحنا يد صار يعني ما كسؤال ويدينا يرنتي إن سؤال فلا أبو يديان ويرهدان بعهد وهي قرنا يلبض بقينا تهاي لكن مع من سنتهاي سياسة جوني وقاصد كي جوني ستاجا إن أقول على توان وقرنا قولنا أقول على توارهم لكن مع من سنتهاي مركب فوسي أنت سؤال لو يديو وتوصلوا ويدي أيا في عين مركب جواب تهذا السوق مدة كلا
in ay baarlamaanku iyo xildhibaanada baarlamaanku intay soo fadhiisiyaan weydiiyaan oo ay su-aashaas si toos loo weydiiyo markaas ay uga jawaabto la eego inta taa la helayo kolley inaan ka hor dhaco ma jecli laakiin waa gobolada waqooyina way u dhalatay Soomaaliyana waa dalkeedii isaas ay jawaabta qumani waxaa lagu dhawaaqay shir wada hadal ah oo u dhaxeeya Somaliland iyo dawladda Soomaaliya oo la qabanayo bisha May khaatuma ahaan sidee ayaad u aragtaan wallahi shirkaasi waa maqlay in dhawaan lagu dhawaaqay dawladda Ingiriiska ay markale martigelinayso shir ay ku kulmayaan maamulka la baxay Somaliland ama gobolada waqooyi iyo dalka Soomaaliya waxaan u maleynayaa shirkaasi gobolada waqooyi dadka dega waa la yaqaanaa in ay dawladda dhexe aad uga fiirsato oo dadka ay la fadhiisanayso iyo dadka ay shirka ka qayb galaya aad loo hubiyo ayaa muhiima waxa weeyaan hadii la leeyahay waxa laga shirayaa beel kamida beelaha dega waqooyi waa gaar laakiin in dadka kale inta dabada la mariyo beel iska soo horsato anaga cid matala dawladda Soomaaliyeedna ay ku taageerto soo hor fadhiisto waxa weeyaan waa qalad wax ka soo baxayana ma jiraan waa in dadka deegaanka waqooyi dega oo dhan waa loogay khaatuma kamid tahay awdal kamid tahay aakhir kamid tahay ay madasha wada fadhiyaan tala ku lahaadaan la weydiiyaa cid waliba wixii ay rabto la weydiiyaa sidaas baa waxa weeye sida ay ku shirkaas ku madhali karaa hadii kale wuxuu noqonayaa on shirarka hore biyo oo dhaasho wax ka soo baxayana ma jiraan mudane aadan cabdullaahi shuuriye haddii caawa fursad aad u heshay dadweynaha Soomaaliyeed gaar ahaan khaatumo oo ka dhageysanaya dacallada adduunka iyo malaayiinta kala socota Soomaaliya ee tooska uga dhageysanaysa shabakadan radio ogaal maxaad soo jeedin lahayd xasanow marka hore waa adiga aad kaaga mahad celinaya fursaddan iyo radio ogaalba dadkay dhageysanaya ee Soomaaliyeed waxaan leeyahay Soomaaliya hadda saansaan iyo wax fiican oo in midnimadii iyo qarannimadii Soomaaliya soo socda aasaaseediiba hadda insha Allah ii muuqda waxaan leeyahay inta laga shaqeeyo midnimada laga shaqeeyo waa laga gudbayaa taasun baa la isugu imanayaa waxaan leeyahay khaatimo door weyn bay taa ka qaadatay waxaan u haystaa inay tahay waxyaabaha soo dhaweeyayba in riyooyinkii beenta ahaa iyo waxba la kala goynayay iyo wixii in laga tanaasulo wada hadal iyo miiska la soo wada fadhiisto khaatimo door weyn bay ka qaadatay reer khaatimana waxaan leeyahay mabruuk alif mabruuk maamulkiina sanad jirsaday meelaad joogtaanba midnimo iyo taageero iyo sidii aad isugu tashateen shacabkiina iyo deegaankiina ugu qabateen halka ka sii wada insha Allah sanadka dambena Soomaali weyn oo dhan iyo reer khaatumaba waxaan u rajeynayaa caafimaad iyo horumar iyo khayr badan insha Allah waa hagaag aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay mudane aadan cabdullaahi shuuriye oo kamida odayaasha jaaliyadda khaatumo ee magaalada Toronto ahaana afayeenkii shirkii tale ee lagu aasaasay Khaatuma State waxaad naga dhageysanaysaan ogaal radio mawjada dhererkeedu yahay 88.9 FM
halkudhagyada ogaal reeriya ayaa waxaa ka mid ah runta sheeg xataa hadday dacar ka qaraadhahay. dhegaystayaashiyada qiimaha iyo qaayaha loo doodeenna caawa ayaa waxay ku salaysan tahay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya ahna ra'iisul wasaare ku-xigeenka Marwe Foosiye Yuusuf Xaaji Aadan ayaa waxay u taqaanaa gobolka Shabeellada Hoose iyo Shabeellada Dhexe inay ka tirsan yihiin gobollada Jubbooyinka. sidee baa qof aan kala garanayn gobolladii Soomaaliya iyo meesha ay ku kala yaaliin looga dhigi karaa wasiirka arrimaha dibadda? waxay kaloo wasiirka arrimaha dibaddu Marwe Foosiye Yuusuf Xaaji ay u muuqataa inay ka tirsan tahay laba waddan. sidee baa asagu qof aaminsan inuu yahay laba waddan looga dhigi karaa wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya? xaggee bay wax ka khaldan yihiin? idaacadda reeriyo ogaal iyo maamulka reeriyo ogaalba mas-uul kama aha shakhsiga cabiraya fikirkiisa ee waxay ku eg tahay oo keliya maskaxda ay ka soo maaxanayso. waxaan ka codsanaynaa dadka nala soo xidhiidhaya inaan laga tegin karaamada iyo ixtiraamka shakhsiga. bal aan wax yar wada dhagaysana hadalladeedii. waa tahay anuu soo gabagabayn doono su'aalaha aan kaaga mahadcelinayo sida aad maaragtay nooga aqbashay. waxaan jeclaan lahaa dowladdan runtii xiriiro qoto weyn ayaa laga doonayaa, waddankana dhibaato badan ayaa runtii ka muuqata. Foosiyo khilaafaadka hadda u dhaxeeya dowladda iyo maamul goboleedyada Soomaaliya kara ma qeexi kartaa maamul goboleedka aad sheegayso? waxaa jiray hadda arrimaha Kismaayo kale way jireen iyo Jubbooyinka oo adiguba aantaad u tagtay Kenya aad macnaha dadaal badan u gashay arrimahaas oo kale sida lagu dhameyn karo. wax horta khilaafaada anagu kullayba anagu Kenya marka cilaaqaadkeena aan soo hagaajinayay waana ku guuleystay ma sha Allah. dhulka la leeyahay Jubbaland gedo shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose way waa regionadii 18 hore ee Soomaaliya 3 gobol oo kamid ah. dad kale ayaa xaq u leh inay soo saaraan dawladaha ay doonayaan, administrationkay doonayaan, maamulkay doonayaan. dad kale baa xaq u leh. dawladda dhexe waxay ku taageeraysaa inay u sahasho si ay hawsha magarasa ugu sahlanaato. waa tahay waxaan ka codsanayaa hal su'aal oo runtii aan jeclahay inay adiga aad ku taabanayso inaan ku weydiiyo oo ku saabsan dad badan baa waxay leeyihiin Foosiyo markii hore Somaliland ayay maaragtay xisbi ka asaastay, inta badan qadiyada dhinacaas bay u ololeynaysay, kadibna halkan ayay timid wasaaraddaas ka qabatay. arrimahaas ayaa dad badan isweydiinayaan isu dhow oo macnaha waqti yarna u dhaxeeyay sida ay ku timid. marka ma ka hadli kartaa taa? ma ka hadli kartaa. Somaliland waan u dhashay ha Foosiye Yuusuf Xaaji Aadan cilmi qabilaanahay, hargeysa reer weyn oo caan oo laga yaqaanaanahay. Soomaaliyana waan ahay. Soomaaliyana iyadoo aanay iiba kala duwanayn haddana General Abubakar Ftuujan xaaskiisa ahaa carruurtaydiioo maasha Allah waaweynaa joogtaa. marka anigu labadaba waan ahay. wax la isu weydiiyaa ma jiro. unity-ga la sheegayo ee midnimada Soomaaliya xaggaasina waa qayb xaggana waa qayb, qofka labadaba ah unity-ga la sheegayo waa aniga. marka waxaad leedahay labada dhinacba waa ka heli karaa. dadkayga waa dadkayga. waxaadna naga soo tiirsan kartaan 4 6 5 8 2 wagaag dhegaystayaal khadka telefoonku waa idiin furan yahay. waxaad naga soo tiirsan kartaan 4 6 5 8 2 sidee ayaad u aragtaan wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya inuu kala garan weydo gobollada Jubbooyinka iyo Shabeellooyinka? dhegaysta hawada ayaad ku jirtaa, fadlan magacaaga sheeg, fikirkaaga koobana soo jeedi. magacayga waxaa la yiraahdaa Maxamed. waxaan rabaa inaan ka hadlo labada arrimood, midii sportiga iyo midan gabadhana hadda ka hadlayso. haye midda sportiga horta
ama midda sportsku maanta caawa dooda nooma aha waxaan ka hadlaynaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya teeda okay midda wasiirka arrimaha dibadda horta qofku waa qaldami karaa shabeelle aniga kula hadlay shabeellooyinkan kula shabeelana isku qaldaa jubbaland wax ka tirsan iyo Puntland waxay kaliin ma garanayo aduu laakiin wasiirkii arrimaha dibadda ma tiid aduu wasiirkii arrimaha dibadda ma tiid laakiin gabadha hadalkeedii sidaan ku sheegay waxaan ka wada wax qalad ay sameysay oo weyn uma jeedo labada shabeello ay ku qaldantay dhinac kalena waan ka dhashay tiri oo Somaliland dawladda Somaliland ma heedin afkeeda kama heedin so there is nothing wrong hadda wax laga doodo weyn oo meesha yaalo aan ku cambaran karo ma jiro dalkan waa dalkaygii ku tiray marka waa hagaag aad iyo aad ayada maasanta dhageysa hawada ku tafadlan magacaaga shirka kooban soo jeedi hello assalamu alaykum wa alaykum assalam magacayga waxaa la Cabdiraxmaan soo dhawow waan ku dhawahay sida idin igu horeeyay uu sheegay anna waan faqsanahay su'aasha aad weydiinaysa gabadha wax qalad ama wax xumaana ka muuqata meesha mar haddaan adiga xumaynin ama adiga halkaas waxaad naga dhegeysanaysaa ogaal reeriyo mawjada dherarkeedu yahay 88.9 FM annagu gabadha qalad ma saarayno gabadhu waxay tiri shabeellooyinka iyo jubbooyinkii bay kala garan laaday waana wasiirkii arrimaha dibadda ee Soomaaliya dhageysta wada ku tafadlan magacaaga shirka kooban soo jeedi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا هرت وايد سلامي. والله المقعة وكاقدنا. مقعي وحلي هذا علي. علي سودو. وندو هاي أنا كل الرجال سبحانه وتعالى الصومالي ده واحد هذا. الماما هذا الكمجر. هي. عداني هذا شبه الله ده. يجبده ده. وأن واحد سو متقنا عرفك وقلدمي كر. عربka kuma qaldami karto waa gobolada Soomaaliyeed oo jiro afar weeyaan waa gobolka Shabeellada Hoose iyo Shabeellada Dhexe Jubbada Hoose iyo Jubbada Dhexe si la isugu qaldi karaa laakiin meeshan ma aha qorraxay iyo ma taqaanay ma waa jigjiga dhageysta wada ku tafadla magacaaga shay fikirkaaga soo jeedi waxa la yiraahdaa jaamacado haye waliyo gobolada qabla xayaan qamaadin dhageysta wada ku tafadla magacaaga shay fikirka kooban soo jeedi assalaamu calaykum magacayga waxa la yiraahdaa Xariimo soo dhawow walaal waan dhawahay walaal gabadhu waxay tiri maxay ahayd soo meelna waan ka dhashay meelna waan u dhalay marka wax qalad oo ay sameeyay haba yaraatay uma jeedo hadii adiga aadan qalad ka saaraynin waa hagaag aad iyo aad ayadu maasantahay waxaad naga dhegeysanaysaa ogaal reeriyo mawjada dherarkeedu yahay 88.9 FM bal ku soo celina qaybtii jubbooyinka iyo shabeellada si isugu khaladay waa tahay anoo soo gabagabayn doono su'aalaha aan kaaga mahad celinayo sida aad maaragtay nooga aqbashay waxaan jeclaan lahaa dawladdan runtii xiriiro qoto weyn ayaa laga doonayaa wadankana dhibaato badan ayaa runtii ka muuqata fuusiyo khilaafaadka hadda u dhaxeeya dawladda iyo maamul goboleedyada Soomaaliya kara ma qeexi kartaa baabul goboleedka aad sheegayso waxa jiray hadda arrimaha Kismaayo kale way jireen jubbooyinka oo adiguba aantaad u tagtay Kenya aad macnaha dadaal badan u gashay arrimahaas oo kale sida lagu dhameyn karo wax horta khilaafaada anagu kullayba anagu Kenyan marka cilaaqaadkeena aan soo hagaajinayay waana ku guuleystay ma sha Allah dhulka la leeyahay Jubaland gedo shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose way waa regionadii 18 hore ee Soomaaliya waa hagaagdaysa hawada ku tafadlan magacaaga shay fikirka kooban soo jeedi halo habeen wanaagsan walaalo xasan waa baydan soo dhawow walaal fikirkaygaan ku darsanayaa in adeer hadalka waa maqlay markaas saastay haye marka in shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe bay tiri iyo gado sax shabeellada dhexe iyo shabeellada hoosena wabiga shabeellaa mara jubbada hoose iyo jubbada dhexana wabiga jubba maro loogu magac daray haye marka hadday ra'iisul wasaaraha ay tahay arrimaha dibadda waxyaalahaas oo kale inay qaladamada ahaba mana kala taqaano marka qofaan kala aqoon goboladii Soomaaliya 18 gobol oo hadda wax lagu qaybsanayo marka seebu Soomaali ugu talin karaa qofkaas oo kale waa hagaag aad iyo aad ayaad u maasantahay baydan dhageysta hawada ku tafadlan magacaaga shay fikirka kooban soo jeedi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حسن راديو قاروالي سلامي وكاقادنا عبد الله جامع أورك وطني سومالي دول أورك وطني سودو والله قبل ما دام رئيس الوزراء هي وزارة أرمها تبدل waxaa rabay maadaama su-aashaas la weydiiyey ummadda inay u qeexdo ay tiraahdo hal siyaasad arrimo dibadeed ayaa jirta Soomaaliya aniga ayaana matala midnimada ummadda Soomaaliyeed inay qeexdo si cad u sheegto ayay ahayd inay ka meermeeriso tana meeheen maadaama ay tahay wasaaradda arrimaha dibadda
siyaasadda arrimaha dibadduna ay tahay xal siyaasadda arrimaha dibadda ayada ayaana hogaaminayso midda kale waxaan ku darayaa maamulkan Somaliland leeyahay maaragtay walaal waxa ay ku doodaan waa xuduudo gooni-goosadka lagu sheegay waxay tahay xuduudo bay ku rabaan inay goostaan xuduudahana waxaa degan beelo badan qiyaastii marka la fiiriyo maamulkooda meesha uu gaarsiisan yahay iyo xuduudda ay sheeganayaan maamulkooda inta uu gaarsiisan yahay dhulka regionkaas Somaliland loo yaqaan waa 45% gartay 55% maamulkooda ma gaarsiisna silaanya ma tegi karo meelaha deganna ma aaminsana marka waxaa la wadaa marka xuduud baan goosanaynaa dad aan ku raacsaneen marka arrinta hadda la soo wada ayaa waxay tahay beelaha degan iyo qof u dhashay maamul Somaliland iyo Soomaaliya kama hadli karo meelaha maxay tahay maamulkaada ma waa gaarsiisnaba xudun iyo boocan iyo buuhoodle iyo qaleex silaanya ma tegi karo waana regionka ay xisaabsanayaan maab ahaan juqraafi ahaan ay leeyihiin annaga naga tirsan yahay marka shuuriyi iyo maamulka Khartoum State waxaan ku soo jeedin lahaa inay maab samaystaan oo leeyahay dhulkaas maabkaas la sheeganayo annaga degan maamulkaasna nagama tirsana namana xukumaan laakiin Cabdullaahi Jaamac maabka Khartoum State wuu samaysan yahay oo maabku waa uu samaysan yahay calankiibu ku cad yahay waa maabka waa la soo gudbiyay qaramada midoobay baa ka warqabta dawladda federaalka Soomaaliya kama warqabta maabku wuu dhisan yahay hadalkaadan ku sidaayay baasha hadalku u socdo ayaa waxay tahay maamulka yaga inta uu gaarsiisan yahay kaliya ha lagu ekeeyo xuduudaha kalena dadka degan ha la afqabto way wada hadal ka qayb galin marka maadaama ay wasiirada arrimaha dibadda tahay inay ummadda Soomaaliyeed u sheegto waa la weydiiyo wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya dawladda federaalka maamulka ku meelgaarka waa ka baxday adigu wasaaradda arrimaha dibadda oo Soomaaliya hal siyaasad ay leedahay shirarka caalamiga ah waxa ka qayb gali karo hal wasiir arrimaha dibadda laba wasiir arrimaha dibadda isma raaci karaan marka inay ummadda si qeexan ugu sheegto siyaasad arrimaha dibadda ay ka hadasho ee tiraahdo Soomaaliya waa mid ما هنا معمول قبلات يدب وصل نقطة حاجة كتير سنة معه. وأنا ومضوا عديسان. وهجاج هذا يوم ما أنت عبد الله الجامع. هذا جي سودا كنت أفضل مقع على شيء فكرة كوبنا سوى شيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله المقع. ويلسجوا. هي سودا بوم. وراو رنتي وحى مشكلات قفك إسقى أو سن أوين وحى ومسؤولية وهي أي مسنوين. dhibaato qoftaani waa laba wajiire waxay u shaqaysaa Somaliland uma shaqayso dawladda Soomaaliya ama danaha Soomaaliya waxay ku tusaysaa qofta kale anigu halkaasna waa u dhashay halkaana waa u dhashay that means waxa weey macnaha wadankan aan ay baraan ku xigeenka u tahay ay u tahay wasiirka arrimaha dibadda u tahay danihiisa maba fulinaysaba umana shaqayso danihiisa ma fuliso marka waxa ka sii xun ninka u magacaabay maxaa lahaa wasiir arrimaha dibadeed oo u magacaabay ra'iisul wasaare ku xigeen oo danihii ummadda Soomaaliyeed gacanta macnaha secretkii wadanka gacanta ka saaray يعني كاسة كشيحن قبطان إني تقانو ويتقانا ودنك شبيلوين كيجبوين كويكنا تقان لكن وحاوي وكونسبيرسي لوغو تلقالي إن سوماليا مقعدة الودلو سي أي مارت وغفر ذيسو سي سومالي لان أي دادك أي مساكين توهاي مدحك الدراعيسو وغفر ذيسو هوشو أو أي مدح بنانا وهاقاك آذي ياضو مع صنطة دقيستا وذا كنت أفضل مقع شيء فرقة كوبانا سو جيدي ها السلام عليكم وحاليدها أيان سعيد أيان سودو شعبيكم مقعدير سودو أيان ها ولا الوا مهدسنتهاي إن وحن آد ugaxuma hay iyadiyo wasiirad ah ummadda Soomaaliyeed haddana kala qaybinaysa ummadda Soomaaliyeed waa wax aad looga naxaruntii haddana aanan kala garanaynin maxaa la dhahaa goboladii ummadda Soomaaliyeed runtii ani waxaan oran lahaa fikirkayga wasiirad uma qalanto أيه حلكها إسكعسيشو تلذي ذو أنت السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لذي تودك تفضل مقع شيء فكرة كومنا سوى شيء حسن عبد الله كرتي والسلام ومحمود محدين كله محمود محدين سودو ودوه كله حسن ومركو فوزية انت عن لقادقين وزير كارمها الدبادة الصومالية وحي أحيد إن لويديو موقفك أي كتاغن تحي إن ريرك أي كسو جيدو دولد لماذا أي شيغان يان
ma ku raacsiisan tahay mise way ka soo horjeedaa haddii ay ku noqoto meesha ay ka timid reerkeedu xorriyatul qoolkeeda ma ku dhihi kartaa wax maamul ama wax dawlad ah ee aad tihiin ma jirto Soomaaliya anaa idin matila reer ahaan waad ku noqonaysaan haddii ay ka tiraahdo Hargeysa arrinkaasi maxay xorriyatul qoolkeeda u dhimaya xasanow last week aad buu u buuxay qadkaaga waxaan rabay arrinta Faysal Cali Waraabe inaan ka hadlo miyo ogolaan karto dhalo kama ogolaan kara sababtoo 8 daqiiqadood ma haysta oo Soomaaliya dhan wada sugayso marka wax yar bandahaya kullay yaad barra ayuu wax ka yiri Faysal Cali Waraabe intuu uu ahaa injineer ka taliya ama ka shaqeeya hay'adihii wadanka meesha jiray marka siyaad barre markuu indindeenaya hay'adaha ama iskuul marka aad rabtid in aad subaxii u kalahdid aayadaha quraanka marka calanka uu ku xigo guulooda siyaad ayaa la qaadi jiray marka Faysal Cali Waraabe marka siyaad barre uu indindeenayo hay'adaha uu yimaado Faysal Cali Waraabe wuxuu ahaa dadka ugu firfircoon ee guulooda siyaad marka la qaadayo waxa isruuxidiisa ay ka sideetay ama ka fiicneed hobalada waa bari sida isruuxaan maantana in nin soo matali jiray taliska guud ee Soomaaliya qarankii Soomaaliya ul ehelna ayuu wuxuu ku ogaaday god marka qof kasta oo qabiil u taagan hantida guud ee tikada airportka iyo badaha waxa leh Soomaaliya waxa ka soo baxa ee lacag ahaana markasta waxa mishaar looga dhigaa dadka ka shaqeeya meelaha haddana hantida guud ee qaranka Soomaali uu leeyahay Soomaali ayaa leh hantida gaarka ah ee reerka Faysal Cali Waraabe ay leeyihiin uma noqoto in loo isticmaalo in lagu gooyo Soomaaliya Soomaalida sideedana hal magac ay leedahay inta aysan iman Britishka waxa loo yaqaanay Soomaaliya British baa yimid waxa loo kala qaybiyay Northern British Somaliland Talyaanigii baa yimid waxa loo qaybiyay Southern Italian Somaliland marka la isku daro labadooda Somaliland baa la yiraahdaa adigu Somaliland baa ka mid tahay anigu Somaliland baan ka mid tahay laakiin hal reer oo English sympathizer ah baa wuxuu u ololeynaya wadankaas inuu kala gooyo qof kasta oo Soomaali ah way dhigeysanaya Khartoum State way dhigeysanaysaa Awdal State way dhigeysanaya dawladda ka jirta Soomaaliya Xasan Sheekh ma ahan inuu la gorgortamo la fadhiisto ummad hal reer ah og inay wadanka kala gooniyaan waa in uu qaadaca danta Soomaali midnimada Soomaali magaca waa la leeyahay qof cid gaar ah u leh ma jirto xasan waa ka baxay وهجاج آدي آدي يا ضمان سنتي محمود محيدين لقيت سويدا كنت فضل مقع شيء فيك كمان سوي شيء الو السلام عليكم حسن ايوه وعليكم السلام ورحمه الله مقعه حسن ومن كي من حد بليدها arrintu maanta aad bay u kulushay marka waxa weeye horta niyo waxa nasiib darro ah oo aad iyo aad fool xumo u ah saaxiibo ilaacada horta number 1 waxay noqonaysaa haddii aad u sii dayso sida caawa tahay habeen kasta oo nin waliba aad horta ilaacada aad u wanaagsan bay noqonaysaa Soomaalida oo dhan ku soo xidhanto laba arrimood yar baan taabanayaa gabadha arrimaha jibooyinka waxa iga deeqay anigu markay tiri dadka wada magaalada ama gobolka degan ayaa leh inay maamul soo dhistaan tiilka ugu weyn taasoo ahaa waxaan laga hadlo dhan waxa ku fargaraynaya magaalada ama gobolka Jubbaland la yiraahdo dadka deega cid kasta ahaadeen waxay isku raacaan baa soconaya taas waa number 1 midda labaad waxa nasiib darra rag waaweyn oo mutacallimiin isku sheegaya oo leh ururaanu ka madaxnahay inay maanta Soomaaliland waxa la yiraahdo ay qeexi kari waayaan oo ay ku sheegaan qabiil Somaliland qabiil maaha waa dhul de ahaan jiray 80 sano Somaliland la oran jiray xuduud bay leedahay Soomaaliya isku darsadeen Soomaaliya markay laakiin Somaliland hadda waxa ku soo mar haday gooday Awdal ay gooday oo Khartoum ay gooday maxaa soo haray markaa xasro waan Israa'iil kaaga jawaab horta walaal wixii aynaan hubin inaynu sheegno horta Khartoum reerka la yiraahdo waa reer annaga ah oo reer Somaliland reer laga soo horjeedo maaha reer la necab yahay maaha waa nimanka dawladda Somaliland hagaya ee ku jira
hogaamiyaashii ugu sarreeyay xagla toosiye ay ka mid ahaayeen waxaad naga soo tiirsan kartaan 4 khaatuma state waa dawlad gooni u taagan oo dawlad goboleeda dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa aqoonsatay waxa laga aqoonsan yahay igad ba laga aqoonsan yahay waxa laga aqoonsan yahay wadamada dariska oo dhan ba laga aqoonsan yahay dhageystayaasha ku taafadlan magaca sheefirka koobana soo jeedi assalaamu alaykum maxamed ayaa la dhahaa kowle marka labaad halkan waxaa kusoo kacay ninkii ugu dambeeyay hadlayay 8 sano ayay Somaliland jirtay ka hor maxay ahayd Somaliland marka inay weydiiso waa hagaag dhageystayaasha ku taafadlan magaca sheefirka koobana soo jeedi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. هذه ما كل سلام حسن إبان هذه. وكان قاعد وران. هذه ما كل سلام أنا وحنا ليه بناهي مسيرة الصومالي وقف بين هذا كمان بسكول كنيتو وحاو برتاوا جغرافيا موقتي. أيه. marka waa la yaabay wasiirada arrimaha dibadda way isku sheegaysaa juqraafiga Soomaaliya ma kan marka aanu foosiyo waxaan buu arkaaba jiirad haan ku weynatay ama qof xaqiraysa umada Soomaaliyeed waa sidaan ay la tahay midda kale tan markii aan qaabkeeda eegay had iyo jeer Soomaaliya waa u dhashay Soomaaliya waa ka soo jeeda waxay iska dhigaysaa wadamada China iyo Philippines anu waxaan buu arkaa qof xaqiraysa umada Soomaaliyeed dawladana waynu aragnaa waa kala googoyn lugoyn حقيقة waxa way juqraafiga way taqaan oo ka xaqiraad way marka waxaan leenahay walaal maabkii Soomaaliya dib ugu laabo taariikhdii iyo juqraafiga iskuulka ku dhigatayna dib ugu noqofo si ay waa taqaan wada inkaraysaa waxaan ku sheegnaa Soomaaliya waa Soomaaliya Soomaaliduna waa federal wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh wa alaykum wassalaam warahmatullahi wabarakatuh dhageystayaasha ku taafadlan magaca sheefirka koobana soo jeedi magacaygu waa Axmed Jaamac Migal نيوم ما كوح خلادين تدين جواد وزيرته أيه ما هدي تريد دتك ماشى أو دشوا ماشى مع مولانا وهالكي أنت كلامه ده ورن سومالي ورن لطي سومالي إنه واحد يقول له مركا لو ضغط بوي احترام السلام مركا أضو واحد من سنتها لبو وضن أما وحنا من سنها إني سومالي طاي هالوضن أين لا ضاي هالعالم waxaan aad ugu xunahay dadweynaha boqolaalka gaaraya ee khadka telefoonka ku jira inuu naga dhamaaday xilligii doodu inta aan hawada ku kala maqanahay waxaad naga soo tiigsan kartaan khadka telefoonka ee 4 mar labaad qorta waa 4 6 2 7 8 2 9 4 4